markasta oo aan maqlo magaca Yuusuf Maradon waxa aan lumiyaa xakamaha dareenkayga waxaana u noqdaa nolol iyo waqti jiritaankayga ka weyn. waxaan istaagaa booskii Yuusuf Maradon waxaan shabahaa muuqiisii waxaan ahay Yuusuf Maradon Cali waxaan ahay nin aan dheereen oo aan gaabnayn midabkiisuna furan yahay. waxaan dhex leegleegsanayaa jidadkii xamar xilliguna waa horaantii 70-meeyadii. waxaan xiranahay dharkii uu caanka ku ahaa macawiis saranda ah, jaakad madow, shaar cad, koofiyad, kaba sandal ah oo sigisaan lagu lingaxay iyo ushii bakooradda ahayd ee uu miisaanka socodkiisa ku dheelitiri jiray. waxaan goor saqdhexa ah ka dheelmanayaa gurigii maaxda murtidiisa looga maali jiray xigmaddiisuna ay ku darari jirtay. waa guriga Xaliimo Qaliif Magool oo maalin weynta inteeda badan uu ku qaadan jiray. waxaan cagta saarayaa waqti mugdi ah jidcaddihii warta nabadda ee uu habeen walba ku dheelman jiray. waa aniga soo gaaray qolkii carshaanta ahaa ee uu ka degganaa gurigii maamadii reer Banaadir ee ay Fay ka falle. waa maamo goob ah oo Yuusuf Maradon qol carshaan ah oo guryaha ka go'an horay ugu hadiyeysay si uu gabaad uga dhigto oo uu hurdada habeenkii ah ugu lado. waxaa qolka gudihiisa yaalla dhowr salli oo duug ah oo inay dhammaadaan ku sii dhow iyo firaash aragiisu liito. halkaas ayaa Yuusuf Maradon hoy u ah, maalintiina wuxuu aadaa guriga Xaliimo Qaliif. gogoshaas dayacan ee duugga ah waxaa dusheeda dangiiga ruux ka maran hayn adduunyo wakhtiguna u itaal sheegtay. ruux lagu dayacay sooyaalka taariikhda Soomaalida, naf waddani ah oo dacdarrada dalkeeda ka dagaalanta iyo jiraal sadarrada sinaanta sawriciisa ku baadigooba. gogoshaas aragga xun waxaa ku lada hurdadiisana ku bogta Yuusuf Maradon oo aan ku soo koobi karo shaqsi luxdan oo haddana legdan. halkaas markay giraantu rogmanayso bal aan shito heeskiisii waqti. waxay soo baxda 60-meeyadii waxaana ku luuqeeya boqorkii codka Maxamed Salebaan Tubeec. waxay ka marakacaysaa dhumucda suugaaneed iyo dheeha murtiyeed ee Yuusuf Maradon. waa hees ka marakacaysa doonista ruuxa Soomaaliga ah iyo filashada uu ka qabi karo dowladdiisa. waxay dibadda keenaysaa dunta ku guntan duunka kasha da'yarka Soomaaliga ah iyo doonistiisa jiraalka adduunka. Yuusuf Maradon wuxuu noo ishinayaa in nafta da'yarka Soomaaliga ah ay u hanqaltaagayso nabad iyo ladnaan adduunyo oo la isku laray, barwaaqo iyo hodantooyo isbarkaday, jacayl shimbuuxsaday, kalgacal aan laqwi lahayn, sharaftoo bulaasha iyo ceebta oo iilata. taa beddelkeeda da'yarka Soomaaliga ah waxa uu ku sugan yahay ka soo horjeedka diidmadii Yuusuf Maradon 60 sano ka hor uu sadarradiisa suugaanta noogu tusmeeyey. shalay iyo maantaba da'yarka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool waxa uu wajahayaa dacdarro nololeed iyo taagdarro nafsadeed. waxa uu noqday diga hulaaqaysa iyo dambaaburo lagu holciyo dirir uusan garanayn waxa ka dhigay wehelka dogobka lagu qiiqiyo. da'yarku wuxuu noqday jaranjaro looga tallaabo jarka cadaabta iyo jiirada hataaqada. isagoo oo ka niyad jabsan Yuusuf Maradon sida dowladnimada Soomaalidu aysan da'yarka ugu ahayn wehel uu isku hallayn karo, wuxuu eebbaweyne si sacab warasho leh u weydiistay inuu ka samatabxiyo wixii aan sharaftiisa dar yeelayn magaciisana kor u qaadayn. isagoo raxmaanka ka maangalay inuu aragga iyo maqalkaba ka dheereeyo waxaan nafsadiisa u roonayn. gacalkayow dhegaystow bal ila dhowaa murtida Yuusuf Maradon oo minidyo gudahood ila gasho hugii uu ku hulaaban jiray. waqtiyu dhismaaguud dowladan dhaliilo dhibaatadan iga dhigo ka warqabin dhaqankaan ku noolaay dhalinyaro intaanay dhaqankaan ku noolaay dhalinyaro intaanay dhaqankaan ku noolaay dhalinyaro intaanay dhagahayo argaba ka dheere agtayda gacal lema ka mid tahay inta Yuusuf Maradon dhayeelsatay
had iyo jeer waxaan muraaqoodaa oo aan amakaaga markii aan arko ashqaraarka heesta abbaayo. waxaan berigii hore isweydiin jiray hinqashada dareenka yuusuf maaradoon iyo halka uu ka soo hirraagayo. nimay jaal ahaayeen baa iiga warramay qisada heestan. nin fannaan ah oo 70-meeyadii xamar ku noolaa ayuu asiibay xanuunka qaaxada ama tiibaydu. waxaa taseeyey oo uu muddo la ildarnaa gixida mayraqa qaaxada. haweenay walaashii ah oo ka mid ahayd ganacsatadii muqdisho ayuu garab weydiista, balse wuu ku hungooba oo kama uusan helin daryeel caafimaad, deexasho waraagtinimo iyo garabkii laga filan lahaa gacaliyayaal uurka isku banneeyey. kolkii ninkaasu hungo magansaday gudihii xamarna uu guulguul nafsadeed ku dareemay ayuu tala ku goosta inuu isaga haajiro banaadir iyo hareeraheeda. waxaa la sheegaa inuu gaaray Siyeelow oo ka tirsan dhulka NFD, halkaas ayuuna aakhirkii ku geeriyooda. rag iskugu jiray Soomaali iyo Booran oo ka xamaasha laagta dhagaxda laga bixiyo ee Siyeelow ayaa gagicilaa god uga faarfaaray, halkaasna ku aasay ugu dambayntii. yuusuf maaradoon oo booska ninkaa isgeeyey, xilkii bini'aadantinimada guntaday, dareenka islaamnimana uu gibilkiisa damqay, ayaa heestan curiyey intii aanu fannaanku xamar ka bixin. waxaa la sheegaa in isla fannaanku heestan cajalad ku duubay intii uu Muqdisho ku sugnaa, balse gadaalkii waxaa ku luuqeeyey Axmed Mooge. waxaanan ka xasuustaa erayadeedii: waxaa lagu ogaa gabar inay uur nuglaatee qofkii aabbahaa dhalay, ayada laguma lumiyee ama kuma iloobeen adoo u eg sidayda. aqoon-yari carruurnimo iyo adoon eegintii hore ima ogida waxaan ahay ruuxii taaldarreeyey. abbaayoy macaanay allaa igu ogsoono, abbaayoy macaanay iminka waan soconayaa, anse kula dardaarmee maxaan kugu idhaahdaa. ogaantay heestan waxaa loo turjumay 4 luuqadood. galab casar ah, aniga oo ku sugan meherad shaaxa laga cabbo oo ku taalla degmada Balambal ee gobolka Galgaduud, ayay soo gashay idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee BBC. qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay ku dartay warka dhilada leh ee sheegaya geerida Yuusuf Maaradoon Cali. raggii idaacadda dhegaysanayey oo odayaal u badnaa ayaa hal mar aamusay. in yar kadib ayuu sheekeeyey nin Yuusuf Maaradoon aqoon u lahaa, waana galabtii iigu horraysay ee aan daah qaado aqoonta Yuusuf Maaradoon iyo shakhsiyaddiisii cibrada xambaarsaneed ee Kismaayo ku iilatay. jaalayaal, tani waa faalle cibreed uu Nuur Daahir Geelle ka diyaariyey shakhsiyaddii abwaan Yuusuf Maaradoon.